waxaan rabaa inaan marka u horeysa halkan uga mahad celiyo wasaaradda waxbarashada iyo bahweynta waxbarashada oo suurto geliyey maanta in imtixaan aad u abaabulan laga soo shaqeeyey, la ilaaliyey, la xafiday, la diyaariyey da'yarta ummadda Soomaaliyeed oo ah aayaha dalkan iyo dadkan u leeyahay. waxa cad sida ka muuqata 40 dhalinyarada ee halkan hor taagan ee ka shaqeysa meediyada dalkani inuu yahay dal da'yar boqolkiiba 80 dadkiisu waa da'yar weeye. macnaheedu waxa weeye hadba sidii dadka wax loo gashado dhalinyarada ah buu aayaha dalkan noqonaya. tacabka la geliyo, sida loo diyaariyo, sida loogu tabco, wax loo baro, loo dhiso jidh iyo maskaxba ayaa aayahoodu noqonaya. si dhow baan ula soconnay hawsha ka socota wasaaradda waxbarashada xilligii hore dawladdii hore tii ka horeysay ilaa tan ama geedi socodka waxbarashadaba. waxaa hubaala maalinba maalinta ka dambaysa in tayada waxbarasho ee uu helayo muwaadinka Soomaaliyeed ay kordhayso. waxaa hubaala in tayada macallimiintu iyo tiraduba ay kordhayso, sida aad ogtihiin in dhawaan la qaatay 3,000 laguna tala jiro in 10,000 oo kale la qaato. waxaa hubaala in fursadaha waxbarasho ama scholarship iyo xirfadaha kala duwan ee uu muwaadinka Soomaaliyeed baran karaa inay maalinba maalinta ka dambaysa isa sii bedelayaan lana jaan qaadayaan dhaqaalaha adduun ee hadda jira. walaalayaal Soomaali meelay joogtaba waa inay ogaato aayaheenu inuu ku xidhan yahay sida aynu u dhisno khayraadka dadkeenna, human capitalka waxaan la yiraahdo. markaas baynu kalluunkana daban karnaa oo iib geyn karnaa, beerahana falan karnaa, tabarna dhalin karnaa, wadooyinkana dhisan karnaa, cimilada isbeddelkeedana la falgeli karnaa, adduunyanaha iyo dalalka dhigeenna la tartami karnaa. maalin dhaweyd waxaa dalka Soomaaliya uu qayb ka ahaanayay urur dhaqaalaha Afrikada bariga East Africa Economic Community ayuu qayb ka noqonayay. ergo 100 qof ku dhow oo ka kala socota dalalka iyo ururka ayaa dalkan yimi. waxaa loo yeedhay howlwadeennada Soomaaliyeed ee wasaarad walba ka socota shaqada, ta waxbarashada, ta ganacsiga. halkaa waxaa laga cabirayay dalka Soomaaliyeed dad ahaan ma u diyaarsan yahay inuu adduunka la macaamilo, waxna ay kala iibsadaan, waxna soo wada saaraan. marka si aynu horumar uga samayno meel walba oo suurtagal ah waa muhiim inaynu da'yarteena wax barno. waxyaabaha aan wasiirka ka falanayno haddana uu gacanta ku hayo waxaa ka mid ah in indho xeel dheer lagu eego sidii loo kobcin lahaa, loo tayin lahaa waxbarashada ummadda Soomaaliyeed. xukuumaddan sida goobo fara badan baanu ka sheegnay, daryeelka bulshada oo ay ugu horeyso waxbarashada iyo caafimaadku wuxuu u yahay udub dhexaad. waxaan rabaa inaan halkan bogaadiyo ugana ducayno da'yarta maanta. waxaan u maleynayaa 30 oo 3,000 iyo 50 goobood oo dalka ah, 114 goobood oo dalka ah ku gelaya doorashooyin, ku gelaya imtixaanaadka. in aan halkan uga ducayno, dhiiri gelinno, garabna taagannahay. markay ka baxaan imtixaanaadkana sidii ay waxbarasho heer sare u sii wadi lahaayeen waa qorshayaasha diyaarka nooca. waxaan rabaa inaan si gaar ah maanta fursaddan uga faa'iidaysto inaan u mahad celinno muwaadin walba Soomaaliyeed oo doorta inuu macallin noqdo. sida ay oran jirtay heestii macallinku waa waadiga waraabinaya maskaxaha dhalinyarada. waxaan rabaa macallin walba oo maanta taagan oo sixi doona oo ilaalinaya oo barbaarinaya ardayda Soomaaliyeed inaan u mahad celinno xuquuqdooda iyo xaqooda iyo noloshoodana sidii loo kobcin lahaa, loo bili lahaa laga shaqeeyo. guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada ardayda ah ee maanta imtixaanka maraysa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. imtixaankuna waa furay.